marka aad da'yarta Soomaaliyeed ka hadasho waxaad ka hadlaysaa dalka Soomaaliyeed horta waayo majority-gii weeye adduun weynaha meelo fara badan baan ka soo maray dalal kala duwan baan ku noolaa waxaan u maleynayaa Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu furfuran hadday noqoto doorka dhalinyaro ay ka qaadan karto ama xataa haweenku ay ka qaadan karaan waxaa jira dalal fara badan oo aynu wax badan wadaagno oo da'yarta iyo dhalinyaradu ay ciriiri badan ku nool yihiin laakiin Soomaaliya markaad aragto sida ay u hadlayaan oo ay yididiilo ugu jirto oo ay afkaartooda u sheegayaan intaan meesha fadhiyo waxaan ka fakarayay maamulka gobolka Banaadir baan si dhow in badan u wada shaqeynaa waxyaha oo dhan iyo meel walba dhalinyaro ka buuxda wasaaradaha tagaysa dhalinyaro ka buuxda hadda shir baan ka yimi shirka dhalinyarada ma ahayn wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay ahayd dadka meesha fadhiya dhalinyaro ay wada ahaayeen oo howlwadeennada kala duwan ah golaha baarlamaanka ee Soomaaliyeed golaha shacabka waxaan u maleynayaa boqolkiiba 40 iyo dhowr waa dhalinyaro anigu hadda dhalinyaronimada waan ka baxayo oday baan noqday laakiin saddexda wasiira halka fadhiya saddexdaba waa dhalinyaro rag ba ha u badnaadeen marka marar fiidiyoyada markaan dhageysto waxaan isla wartalo ma Soomaaliya kala laga hadlaya mise tanaynu ku noolnahay bal aan Soomaaliga dib isaga soo noqday xogay waxaan isiri war laba Soomaaliyeed baad ku kala nooshiin waxaan la wadaagay saaxiibadeenna oo shaqo wanaagsan la haya dawladda Soomaaliyeed dhinac walba ha noqotee maalin dhaweedun bay ahayd markii aan ka qayb galaynay kulan kanoo kala ah oo haweenka Soomaaliyeed fursadoodii sida loo xaqiijin lahaa lagaga hadlayo oo ay safiiradu hogaaminaysay oo ka dhacay halkan maantana da'yartii man la joognaa haddana waxaan ka nimi shirweyne lagaga hadlayo wax la yiraahdo multi-dimensional nature of poverty marka wax walba oo Soomaaliya laga hadlayo ama amnigeeda laga hadlo ama dimuqraadiyadeeda laga hadlo ama aayaheeda laga hadle haddii Soomaaliya laga hadlayo waxa laga hadlayaa waa da'yarta Soomaaliyeed waayo Soomaaliya waa dal da'yar waxaan rabaa marka bal in badan waxaynu soo qadinaa qaybaha inaga dhiman ee bal waxaynu haysanno aynu wax iska dhiraahno waxaan soo bandhigay aragti oranaysa dalka Soomaaliya waa dal dhaqan ahaanba dadka Soomaalidu waa dad ay u furudahay da'yartu inay door ka qaadato siyaasadda haweenkuna ay ka qaataan arqabada jira laakiin kuwaas waa galeena mardhow taariikhda durugsan ee Soomaaliya haddaad ku noqoto xisbiga ugu saameynta badnaa ee bedelay dadka Soomaaliyeed wuxuu ahaa SYL Somali Youth League waqooyiga xisbiyada ka jirana waxa hogaamin jiray dhalinyaro ninkii markaa hogaaminaya xagga yimid in cigaal la oran jiray 30 iyo dhowr sano jirayba markuu yimi meesha horta marka taariikhdeena durugsan baad waxaad ka soo helaysaa dhalinyaro siyaasadda saameeyay hoggaanka qabtay ummadeena bedelay xataa kacaanka markaad u noqoto afarta odaya sare markaad ka tagto rag fara badan oo taariikhda ku xusan niman da'yar oo dhalinyaro markaa wax soo bartay bay ahaayeen markaad soo dhawaato ee aad eegto xataa jabhadihii kala duwan ee Soomaalidu ay samaysatay waxa ay hawlgeliyeen da'yartay ahaayeen niman badan oo hadda cirro meedhan oo meelaha aad ku aragtaano ama SNM sheegta ama SSDF sheegta ama SSyadii fara badnaa sheegta iyagoo dhalinyaro ah ayay kacaankii isa seegeen
وأي جبهة الجلام صدقوا حل جندم بمركي ورلود اللي سكك عيني ورلود أضيع الماء كعين دليرك عسي قولي هذا أنه إسحينانا أو قاد عل طريقينه مجا دليرة أي سكود دين استعمالان لكن ما هيستان كلسوني دي دليرة horta taariikhdeenu waa sida haddaynu inagu iska baadhbaadhno doorar badan oo dhalinyarada iyo haweenku ay leeyihiin baynu soo helaynaa haddaad eegto Soomaaliya dadka ugu saameynta badan marwo Xaawo Cabdi soo garan maysan dhammaantiin ya inta ay dad bedeshay oo saameysay nin sameeyo waa yaryahay marka there are a lot of positive and inspirational stories oo dalka dhex yaala taa markaan ka soo durko maxay muhiim u tahay in laga fakiro doorka dhalinyarada ee qaran dhiska Soomaaliyeed khaasatan xagga dimuqraadiyeynta anigu master thesis-keygii waxaan ku qoray wax la yiraahdo party systems sideebay uga dhashaan dalalka kala qaybsan ama soo kabanaya xisbiyadu haddaynan is-abaabulin oo aynan xisbiye aadin oo aynan dimuqraadiyad aadin alternative-ku waxa weeye inaynu qoriga ku kala dhacsanno kursiga waa laba wado midna qoriga lagu kala dhacsanayaa midna ballot box-ka marka afar shan mabda oo waxtar leh bay leedahay doorashadu horta number 1 dimuqraadiyadu waxay caawisaa wax la yiraahdo societal cohesion danihii kala duwanaa ee dhalinyarada ee waayeelka ee haweenka ee maalqabeenka ee danyarta ayaa intuu xisbi yimaado u oranaya markan isu geegay the aggregation of diverse interests oo bulshada qaybaheeda aan cabiray political platform kan baan miiska soo saaray sidan hal lagu doorto markaas lagu faylayaa mid kalena aragti taa ka duwan ayuu la imanaya bulshadii markaa contestation-keeda kor u kacaya oo afkaaray ku tartamaysa aragtiye ku tartamaysa dalku markaa xisbiyo ayuu kala baxaya intii kun reer loo kala bixi lahaa tan kale democracy ama elections waxa asaas u ah ka qaybgal iyo metelaad political participation and political representation labaduba laba ahmiyadood oo siman bay leeyihiin most of the da'yartii halkaa ka muuqata iyo idinkuba qaar aan meelahan soo gaadhin baa jiro idinkoo kale oo fara badane waxay rabaan inay ku noolaadaan nolol sharaf leh badqab bay rabaan shaqay rabaan kalsooni bay rabaan inay dadka wax taraana way rabaan markay tooda buuxiyaan taana waxa u suurto gelin kara qaranka Soomaaliya ay leedahay hadda anigu waxaan ka imi meel la yiraahdo Dubai oo gabaygeeduba saxaara ah oo laakiin batroolkii iyo dhaqaalihii inta la iswaafajiyay adduun kaleba laga dhigay oo uu aabahay 1960 iyo dhowrkii u xamaalistagay dad baa ka dhigtay dood baanu halka ku galnay dadka hay'adaha adduunka hogaamiya waxaan u sheegay ilmaha Soomaaliga ah iyo ilmaha Swisska ah ama Swedishka ah hal shay baa kala duwaya waa qaranka ay ku dhexnool yihiin waayo dal qumman oo horumar ka shaqeynaya ilmaha ku dhexnoolna wuu horumaraya ilmihii dal la'aan ay ku dhacdaana waa la dagayaa cidla lagaga tagay that's the only differentiating factor as a matter of fact idinkoo bilaadala oo warlord idin haystaan oo dalkii la burburiyay baad intaad iskuul wada tagteen oo jaamacada wada tagteen oo waalidkiin waxaydan baray maanta madaxatiin oo halkan ay nala fadhiyaan oo ay kambaniyada waaweyn ee Soomaaliyeed hogaamiyaan oo ay dhaqaatiir yihiin
bal imagine dalna hadday haysan lahaayeen wax badan u tara marka doorka dhalinyarada rabaa inaan bal si weyn u dul istaagno waa in doorka dhalinyaradu uu ahaado door aqoon ku dhisan oo ka qaybgalka siyaasadda ay ka qaybgelayaan siyaasad baa lanoo tilmaamay un ma aha inay yiraahdaan we have a better option odaygii waanu ka aqoon badannahay waanu ka firfircoonnahay waayo aragnimadiisana waxbaanu ka dhageysanaynaa afkaar cusubna waa keenaynaa nin yaroo aad baan u jeclaysan anigu ninka yar war odayaasha ha la ogaado traditionka iyo dhaqanka aad ka soo jeedo haddii aad ka tagto tukihii baad noqonaysaa la sheegaya laakiin maxaad ka tegaysaa dhaqankaaga qaybaha diinteenna iyo dhaqankeennuba suubani aanay ina farayn ee ummadda dabarka ku xidhaya ee ummadda takooraya ee ummadda dib u dhac ku samaynaya kuwaasaa laga tegaya laakiin kuwa wanaagsan ee ummadeennu ay ku tilmaaman tahay waa la haysanaya cabdi ismaaciil samatar bug buu qoray uu leeyahay Somalia is Africa's first democrats Soomaalidan akhri qaarkii aadan cadde cali sharmaake cigaal cabdirasaaq niman xilligii dimuqraadiyadda ku suntan bay ahaayeen marka wiilka dimuqraadiga rabaa intaanu Paris iyo meelaha ka sheekayn warbal taariikhdaada ka dhugo dimuqraadiyin waa ku jiraan haddii aan tan taagan ku soo durugno maanta Soomaaliya waxay taagan tahay waxa afka Frenchiga lagu yiraahdo crossroads 32 years oo qaran jab iyo qaran fragile ah oo nugul oo aynu haysanay maanta waxaynu maraynaa meel aynu wadada saxan qaadan karno shabaab iska caabin karno ay inooma hayaan khayr inooma hayaan kun qof oo Soomaaliya ninka soobe ku dilay kun qof 1 minute cadow kale inaga dilay ma jiraba cidda kaliya ee ka hor iman karta qof walba halkan idinka fadhiyo idinka mid ah ama saaxiibkiiba waxa yeelayeen ama qof qoyskiina kamid ah wax yeelayeen ama qof aanad garanayn oo Soomaaliya laakiin adoo kala ah oo noloshiisa u socda oo cibaado u socda oo iskuul u socda ayay wax yeelaan horta cidda nimanka ka hor iman karta ee iska caabin karta waa dhalinyarada Soomaaliyeed and you have even more reason to do so dadka ay rabaan inay aayahooda ku ciyaaraan weydinka odayaashu waa galbadeen iyagu waa sababta baasaboorkaaga Soomaaliga ah aanad adduunka markii hore si fudud ugu mari karayn laakiin maanta baasaboor baad haysataa marka jaamacad dhamaysato ama Oxford ama Harvard baad tagi kartaa haddii kale sidii ra'iisul wasaaruhu sheegayay waa la iska ka xidhaya dalkaagu hadduu khariban yahay number 2 dhaqaalihii ayaa inoo saxan maanta oo deyn cafin baynu galnay deyn cafintu ma aha marka deynta laga dhaafo inaad deyn kale soo dhoranayso waa inaad productive sector ka u guurto marka leadership in the Somali context must be contextualized in vertical and horizontal sense haddii dhammaanteen aynu madaxweyne noqono bilaal bilshaawina maaldood baanu saragnay uu yiri madaxweynaha online kan ahay madaxweyne dhammaanteen ma wada noqon karno ra'iisul wasaarena ma noqon karno ku xigeenna ma wada noqon karno laakiin hogaamiyaal baynu wada noqon karnaa leadership meel walba bay taalaa waxaan horta ku faraxsanahay yiridiilada dhalinyarada Soomaaliyeed ku jirta wasiirka shaqadan ahaan jiray waxay weydiin jireen wasiir shaqo goormaad abuuraysa degdeg ba ku jira wasiirka dastuurkan ahaan jiray war dastuurkii goormaad dhamaynaysa bay ku leeyihiin naftarkaygu aad idin kama daaweynayo bari aan fogeyn baan dhalinyaraha marka waan dareemi karaa waayihiina aan dimuqraadiyadda ku soo noqono madaxweynuhu
legacy-ga uu rabo inuu dalkan uga tago waxa weeye inuu jihada dimuqraadiga qabadsiiyo siyaasadana shacabka gacanta loo geliyo si ay u codeeyaan hortaniyahow intii odagu soo qorayay haddii la dulmiyo dumarka iyo dhalinyarada eedda iyagu may lahayn ilaa qalankii baa laga haystay intii ergada dadban anigu ragga ergada dadban ka soo shaqeeyay baan gabigeedaba aniga soo qoray 16 ilaahay dambigayga ha dhaaf ragga iyagii waxa ka soo shaqeeyay de konton qofna waa laga haysan karaa oo qabiil iyo oday iyo bela ka haysanaya 100 qofna waa laga haysan karaa laakiin berri markay ballaarato haddii odagu ka tartan badiyo hadhow hana yarsan haddii banka la isugu kiisaaray idinka iyo odayaashii oo odayaashu idinka dheereeyaan marka ay qabsan doontaan finally doorashooyinku it's not only about national politics doorashooyinku waxay ka dhacayaan heer degmo sidii Puntland ay uga dhaceen sidii Somaliland ay uga dhaceen waxay ka dhacayaan heer maamul goboleed waxay ka dhacayaan jaamacadaha dhexdooda hogaamin ba halka idinka bannaan waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado Soomaaliya xagga nambarada la eego marka la eego duruufteedu ma xuma laakiin nambaradan aad haysataan hadda sida gabadheena ay sheegaysay waa kuwa hiil ku yimi oo gurmad ku yimi this time in la gareeya la raba through elections qarankeenu laba process baa dastuurkeenu uu ka kooban yahay midna waa federalization midna waa democratization haddii federaliyeyntu ay inoo kala qaybisay awoodaheennii iyo waxaynu wadaagaynay dimuqraadiyaddu waa inay isu keento oo ay abuurto national perspectives oo anigu berri intaan xisbi samaysto aan iraahdo dhalinyaro halkaasaynu u guuraynaa bidixi baynu aadaynaa inuu yiraahdo midig baynu aadaynaa oo labada ku kala safataan oo sidaa tartanku ku dhaco waxaynu ognahay Soomaaliyeey waxa ay noqon karno waxaan ku gunaanadayaa waxa la yiraahdo Human Capital Development Index ama Human HDI Soomaaliya 150 iyo above bay kaga jirtaa dalka Sweden la yiraahdo haddan ka soo sheegay shirka kale oo maanta idin caawinaya markii ugu dambeysay numberka 7 buu kaga jiraa intiinan ya Sweden cid tagay ma leedihiin ya wayda tagin Soomaha Ericsson ya yaqaan Ericsson ma maqasheen Volvo ma maqasheen IKEA ma maqasheen ya Spotify bah la yiraahdo ma maqasheen intaba Sweden baa leh waa 10 milyan oo qof xoogay dhira iyo xoogay biyaa bay leeyihiin waana dad idin la mid ah 1% population koodana waa Soomaali hadda if I'm not mistaken haddana donors ba idin yihiino waxa soo dhan ba idinka kabayaan horta inagu goormin adduunku gurmanayna waxaan rabaa adduunka inta isbarbar dhigtaan oo waxa Kenya ka socda eegtaan oo waxa Botswana ka socda eegtaan oo waxa Mauritius ka socda eegtaan inaad dadka la tartantaan Somalia is located in a highly integrated global economy, a regional economy, EEC, the Horn of Africa, the rest of the world, WTO. We must compete at all levels, not only in elections. Because if you are trying to project yourself as a leader of Somalia and you don't have views on the economy, impediments, societal impediments to our nation, then I don't know what you're going to lead. Marka gabaygi hadraawi aan saakan nimanka u sheegay baan idin kale idinku celinaya wuxuu yiri Paris adoon tagin ama boon ka sheekayn barashada dalkaaga horta laga bogtaayo bariya la isku hawlaa heesaha barontumo adigoon bogga u lulin bismillaahi saylici hana haybsantay bari ma ogtahay barbaaray intaas muxuu yiri gable shimbir soo ma taqaanaan dhaqankiina idin baad soo caabiyeen
adduun weynahana la tartama tiinana ilaashada aayihiinana idinku ilaahay intaad kaashataan gacmihiina ku samaysta waa